بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه اجمعين. marka ugu horeyso bahda saxaafada VOD waa idin salaamaya dhammaan bahda saxaafada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aad iyo aad ayaan halka u salaamaya. salaam kadib waxa waaye arrimaha dastuurka aniga hore uga hadlay, yani arrimaha dastuurka ma ahan mid anaka aan kale ku soo joognay. garaweyna nagalama wacin, xamarna nagalama wacin. xamarna waxa waaye saxiixa keliya oo ku soo ahaayo ee wax saxiixi karana waa kayga, anigana waxaa saxiixa ma jiraan. marka wax bahanka bulsho yani mataqaanaa bahal kasta gobolka banaadir waxaan ku sheegayaa in arrimahaasi ay ka diidayaan, anigoo la hadlayo aqoon-yahanadooda, anigoo la hadlayo yani mataqaanaa oqaasha, anigoo la hadlayo siyaasiyiintooda, anigoo la hadlayo xildhibaanada. waxaan leeyahay waxyaabaha yani la doonayo in lagu maqarsado diidda oo aan leenahay yani mataqaanaa waxaan leeyahay waa in laga diidiya. xamarna cid uu ka dhexeeya malaha, anaana duurkeeda xamarna anaana loogu yimid, geedka maxoga iyo waabaha iyo mataqaanaa iyo diidtaana ka tacba jiray waana la yaqaanaa, dukumentigiisana waa haynaa. marka waxaan leeyahay dadka isku daalinayo oo mataqaanaa dhahday dastuur baa xamar u samaynaynaa, dastuur xamar waa loo sameeyey weligooda ku noolaay oo mataqaanaa lama dacwatay i yimideen yani mataqaanaa haddaana dalay noqdeen ilmaha dhaleenaa dad sii noqday. marka in la yidhahdo dastuur hadda lagu suubiha dastuur loo suubihayo ma jiro. dastuurna horaa u suubsaday, horaana u saxiixnay 1960 dastuurkaas saxiixnay, kaas unbaa ku saaheelaa. waxaana u sheegayaa mar labaad aan ku boorinayaa dadka yani inteergaradka ah arrimahaas waa inay ka hortagaan si walba ha noqoto, haddii xag maaliyad noqoto, haddii xag siyaasa ay noqoto, hadda xag gacan hadday noqoto hataa waxaan leeyahay waa in laga hortagaa. arrimahaasna arrimaha aqoonsanaa oo dhanba ma lahaaba gebi ahaantooda waxaan saxiixnana ma jiraan. dawladda saxiixeeda mas-uul ka tahay, dan deegaanka mas-uul ka maha, deegaankaana mas-uulka ah. waa garta malaad, waddanka dawlad ayaa ka jirta, madaxweyne ayuu leeyahay. marka aan kasoo gudubno saxiixa aad sheegayso, dastuurka hadda dawladdu ay samayn rabto waxyaaba aad ku dhaliilsan tahay miyaa jira, mise gebi ahaanba isaga ayaad kasoo wada horjeedaa? wax badanaa ku dhaliilsanahay, kaygana anaa iskala kaadada kuladii warkaasi waa diidnay, waana kasoo horjeednaa. dawladdana kuma taageersane, walaa madaxweyne walaa ra-iisul wasaare ciidaan ku taageersanahay ma jiro. meesha caalamkana waxaa u sheegayaa xamar oo keliya in uu ka socon karo duubka saxiixiisa, cid kaloo mataqaanaa wax ii saxiix karta hore ciddii wakiile ma jirto. dawladda wakiil iima ahan, anigana wakiil kama ihi. haddana dawladda waxa waaye dhaqan ma rabto, dhaqankii ayagana isma galaan, albaabkooda ma garaacno, albaabkayna nooma soo garaacaan. marka waxaan leeyahay deegaanka waa in loo nabadgeliyaale. dawladda ayada waxay saxiixayso ayay dhexdeeda ha saxiixato, saxiixeeda ayada mas-uul ka tahay, laakiin kan deegaanka anaa mas-uul ka ah. haddii uu yahay dastuur iyo haddii uu yahay wax walbo, dastuur kaloo la saxiixayna ma jiro. 114 xadadka qur-aankana waa waradaa, waa haysanaa kalaamka ilaahay mid mataqaana 1960 Soomaaliya oo dhan uu ka heshiisana waa haysanaa. midkaan dulmiga maalaadno waa ka soo horjeednaa. shirarka la qabtana shir loo dhayahay ma ahan, dhammaantood gebiyaantoodana waa inkaraya saasaan leh. waa gartay malaaq waxaa tahay malaaqii xamar iyo xamardaye duuq si weyn looga yaqaano bulshada ayaa tahay. sow sharaftu kuma jirta in dawladda kumeel gaarka mas-uuliyiinteeda aad la kulanto, kulamo aad la qaadato, aad kala hadasho masiirka ummadda Soomaaliyeed si dadka Soomaaliyeed horumar ay u gaaraan? maxaa taas kaa hortaagan? waxa waaye hadday dawladda ee mataqaanaa dardargeliyayso duubka ama ay ka dambayso ugaajyada Soomaaliyeed intaan oo dibba lama mareen, intaanoo alaada ma taagnaan laheen. waxa waaye alxamdulilahi rabbil caalamiin, anigaa duubka anigaa madaxweyne anigaa wasiirka arrimaha gudaha shiiqul kulli anigaa وهذا كلام لا نسمع عليه. هذا الكلام lagu xirey wili waa haysanaa, waana ku dagaalami karnaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. iyo musmaan baraxa la siiga kalihayna waa naqaanaa. xelalkaasi oo dhan aad sheeganayso adiga dawladee ka tahay malaad? waxaan ku sheegayaa aniga duubka xamar iyo xamardaya ahay, yani mataqaanaa dawladdan anakana lama aqoonsana, anakana ma aqoonsano. waa gartay markaan ilaa ma ay ka aqoonsanaadaan ugaasyada Soomaaliyeed dalba dawladda anakaa dhidibada u dhignay, yani eelduraad anakaa dhidibada u dhignay,
maantana lama taqaano yani ayadana wax ma dhamaysta karto waxa waaye baaba iyo hoog iyo dagaal iyo baaba kale ka taliyaysaa meesha caalamkana waxaan leeyahay waa inay gacan adag ku qabataa ayna u soo jeesataa dhaqanka ayaa wax suurageli karo dawladda waxay suurageli karta ma jiraan waa nin sar ku xaraysan oo la ilaalihayo ee karaarmaadka gadaal u galaayo anaka waxau noo saxiixi kara ma jiraan alle waa gartay marka aan usoo noqono arrimaha dastuurka dastuurka qaybo kamida waxaa la sheegayaa inay ku qoran tahay in magaalada caasimada ah ee xamar ay ka dhexayso cid weliba oo soomaali ah gobolada qaar sida puntland oo kale dadkii kasoo jeeday koonfurta soomaaliya way soo ceyrinayaan iyagoo leh halkan uma dhalanina waxaad u dhalateen magaalada xamar marka siday isku waafaqaysaa in magaaladani cid weliba ay ka dhexayso gobolada qaarna maamul goboleedyada ka jira ay dadka kala qoqobaan horta waxaan ku sheegaya hadduu ilaahay yidhaahdo xamar waxaa waaye alxamdulilahi rabbilcaalamiin anaka maamul goboleed waa leenahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin hadduu ilaahay yidhaaho uu ilaahay ka raali noqdona waxaan jecelnahay wakti dhow in lagu dhawaaqo oo mataqaanaa madaxweynihiisana yani aan keenno soomaaliya waxaan leeyahay yani mataqaana ana horta inaan raacdeheena ma laha yani xumaan ku gudi mayno cid walba waa garashadeeda cid walba waa caqligeeda cid walba waa cilmigeeda cid walba waa garaadkeeda taasaa le waa gartay baarlamaanka dawladda kumeel gaarka khilaafaad ayaa hadda ka dhex jira laba guddoomiye ayaana jirta oo baarlamaanku uu leeyahay xildhibaanadu laba dhinac ayay u kala jabeen qaar shariif xasan ayay taageersan yihiin qaarna madoobe nuuno maxamed oo xildhibaan baarlamaan ka tirsan ahaabay guddoomiye baarlamaan u magacaawdeen sidee arrimaha baarlamaanka hadda u aragtaa adiga khilaafka hadda ka dhex jira muxuu ku salaysan ku dhihi kartaa kulley khilaafka wuxuu ku salaysan yahay yani mataqaanaa waa siyaasad ka dhex jirta baarlamaanka gudihiisa waxaana leeyahay yani mataqaana kulley anaga hadda waxaa nagu maqaalaha in mataqaana si xornimo leh ama sida aan qorfiysana telefishinada ama yani mataqaana cajalada cd-ga hadda aan haysano in mataqaana doorasho xor ah ay u dhacday oo doorasho xor ah lasoo doortay marka waxaan taageeraynaa doorashada xorta ayaan taageeraynaa yani doorashada aan xorta ahayn afduubkana ma taageerayno waxaan u qaatay inaad ula jeedo doorashadii madoobe nuuno maxamed inaad taageersan tahay oo xorta wixii xor u dhacay waa taageersana waana soo dhaweynayna laakiin weli xildhibaanadii isqabsigoodii waa uu taagan yahay arrimahan yaa ka dambeeyaad is leedahay fogaan arag soomaaliyeed ayaad kamid tahay kulley anigu hadda ma doonayo inaa gudaha usii dhaadhaco hoos usii dhaadhaca anigu ma rabo laakiin waxaan leeyahay wixii saxa waa soo dhaweynaynaa wixii qaladna waa ka hor imaahaynaa hal meelaan ugu soo wada jeednaa le dhaqanka haddaan nahay anigoo fadlaya magaca ugaasiyada soomaaliyeed dhammaanba waxaan taageersannahay wax allaala wixii nidaam ah wixii dalkaa wax uqabahayna waa taageersannahay waana soo dhaweynaynaa ummadan waa macaasay 21 sano ay sii maraysaa dagaal iyo baabaa ku jirtaa iyo qax waa maqlaysa nimanka kenyaanka biig waxay gudeen waa dhegeysiisa xataa malaynaya lixdanoo soomaali in laisku xiro oo la gubo qoob gooma mataqaana taayar inta lagu weriyo oo dab lagu shiday waa dhegeysiisa malaha dawladda marka faa'iidada kaasa waa taas marka taas hadday faa'iida tahay ummadda ayay u taallaa ummadaana ka tashayso ummadaana arkaysa saasaan leh